بسم الله الرحمن الرحيم وموارد محمود سليبان maanta waxaanu qaadanaynaa casharkeennii taxanaha ee ku saabsanaa Microsoft Word Office 2007 insha Allah taala walaal haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar like comment si aad noo dhiirigeliso jeliska yarna qabo si aad casharada dambe ula socoto iminkana kusoo dhawaada casharkeennii waxay noo socday Office Word 2007 maanta waxaynu qaadanaynaa formatting your text sida aad u habayn lahayd fartaada ama waxyaabaha aad qortay ama warqad ha noqoto ama qoraalkaagii oo dhan nooc walba ha ahaado ayaynu maanta habayn doonaa insha Allah taala maanta markaa waxaynu samaynaynaa insha Allah taala waxaynu ka bilaabaynaa font markaad font dooranayso ee waxaad joogtaa home tab shayga aad rabto inaad fontigiisa bedesho bad marka hore dooranaysaa wa select your text haddaan highlight gareeyay halka waxay soo baxaya liiska kii alaala iyo kan doono ayaan ka dhigayaa Algerian haddii baan doortay waa Algerian marka halkaas aad mar walba aad farta kala soo bixi doontaan insha Allah taala waa barta aad aragtaan waa Arial waayahay waxay noogu xigi doonaa size farta size-keeda halka lagu kordhinayo anigana isla eegno size-kii waa kan size-kii farta halkaas aad ka kordhin kartaa hadda waa ka marna waan yareynayaa marka shayga aad size-kiisa kordhinayso marka hore highlight garaysaa halkaas ka wadaya hadda roka marna waa yareynayaa aan ka dhigayaa 14 waxa weeye waa size-kii grow markaan ka hadlayno grow wax kale ma aha hadda inta highlight garaysto grow marna fartii baad increase garaynaysaa halka oo eedaa weyn ku dhufanaya marna shrink baan isticmaalaynaa oo waan ka yareynaynaa oo ka shrink waa eeda yar marna halkaas ka waaweynaysa marka grow waxaad ka isticmaali doontaa sidaad aragtaan waxa weeye waa inta grow in highlight gareeyay markaad increase garaynayso inta weyn marka aad yareynaysana waa tayar marka waxaanu iminkana u gudbinaa clear formatting waaye iminka markaan doonayo inaan shaygii farta sideedii hore ku celiyo originalka ahayd ay computerka ugu jirtay waxaan taabanayaa waa barta highlight ku dul saaran yahay clear format sideedii originalka ahayd ay ku celinaysaa halka waxa laga waa undo sideedii hore igu celi clear formatting oo ka saadii sheegay taas waa undo waayahay ku socno ball wax kale ma aha wax way khadka ku badi waayahay haddaan diida taabto waa ball ee wax ka dhigaysa khadkii way ku badinaysaa haddii aan ka qaado highlight waa khadkii way ku badisay iminka haddaan ku celiyo dib highlight-kii khadkii way ku yaraysaa markaa waayahay italic wax kale ma aha intaas haddaan doorto aan soo dhigto farta way jiifinaysaa marka way jiifinaysaa italic underline kuna waxa weeyaan xariiq hoosta ka mari qoraalkaagii tusaale ahaan inta aan highlight garaystay baan xariiq hoosta ka marinayaa wada jeedaan xariiq baa ninka hoosta iga martay xariiqda markaad ka qaadaysana dib u highlight garay iyadoo ka qaad kaaga qaadmaysaa marka xariiqaha noocyo badan halkaad ka helaysaa nooca doonto ayaad ka sii dooran doontaa insha Allah taala way strike through waxa weeye dhexda ka mari line way tusaale ahaan inta aan highlight garaystay waxa weeyaan waa inta taasan ka isticmaalaya oo ka xariiq buu dhexda ka marinaya markaan ka qaadayna isla textigaan doortay oo aan highlight garaystay ayaan iyada dib u dhufanayaa oo iga qaadaysaa waaye waxay noogu xigi doonaa iminka
subscript wax kale maaha. way halkaas waxaan rabaa lambar ku qoro. way lambarka aan qoray ama x tusaale ahaan baan qoray x kaasaan waxaan rabaa inaan square hoos dhigo. wax kala sameyn maayo, halkaasaan ku dhufanayaa ka halkaad aragto tan saa ugu dhufto waxaan qorayaa 2 tusaale ahaan iyagoo ka ugu hoos dhigay. way haddaan rabo inaan xaraf kale qoro wax kala sameyn maayo, waxaan sameynayaa ande waxaan qoray 8 aad aragtaan aan kuu soo dhaweeyo. 8daas aan qoray waxaan rabaa inaan dul saarto ama square ama wixii la midka ahaa. wax kale sameyn maayo, waxaan sameynayaa halkii aad garanaysaan baan ku dhufanayaa. horta xarafkan weyneeyo saad ila aragtaan aan weyneeyo soo ma jeedaan. waayahay waxaan ku sameynayaa waxaan rabaa markaa inaan isla eerka laftarkiisa aan mariyo. waxa uu dul dhigayaa midna waxa weeye markaa waa square-kii baad dusha saaraysaa marna hoosta. markaad dusha saaraysano taasaad isticmaalaysaa, markaad hoosta saaraysano taasaad isticmaalaysaa. waayo waxaynu usii gudbi doonaa wax la yiraahdo change case. waxaad rabtaa fartii imika haddeer farta halkaa ku qoran waa far yar yar, waxaan rabaa inaan far weyn inuu bedelo, taasaan ku dhufanayaa. waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa change case. haddeer haddaan doorto lower case fartayda awalba waa yareeray, marna waxaan dooranayaa upper case farta waa weyn iga dhig. waad aragtaa text highlight color haddaynu sii gudubtino iyo wax kale maaha. haddana intaa aan highlight garaystay waxaan bedeli karaa waa backgroundkii farta iyada midabkeedu isma bedelin. waayahay halkaas ka bedeli kartaa nan markaan ka dhigayno dib baan u highlight garaynayaa. dibna waxaan leeyahay ka qaad, marna fartii ayaan kalarkeeda bedelayaa oo aan leeyahay aan ka soo saaranayaa buluugba macasaanba madowba. insha allahu tacaala idinkuna isku daya inaad samaysaan shirkana ku celceshada. fadlan like-ta subscribe-ta intaba aan nagala bakhaylina si aad noo dhiirigelisaan. waa mubaarak maxamuud saleebaan iyo kanaalkii Tayaton Media. fadlan ku xidhnow mar walba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.